والله يا ضربت في الشيء قد أنا والله بيستحق أنا شيء استعملكم مكوبني واو ده أنا كان إنسان كل هذا بحافظة بيسيا بحافظة مشغول بكير شرطة عادي أي الله شيء استعمل ها ما يركل بيسيا وتكلم بالشيء وتكلم عن عسال لا كلنتي وعنا وناكسن داود يا الملك السؤال جوكتين سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ساعات كستو يدين تهاي وقت كستو يدين تهاي هل كأد نقدر ونسمع وشانك السخاء الدين وصاحبكين عبد القادر وبرنامج كحيسلة يدي سو جد بدونا برنامج كواب كي وبرنامج جديد عندنا قبرتين برنامج كان مثل ما ده هراء يدو دعوتين وعن قوة رئيساني حاجة رجع برنامج كسوءها نلشة أما حرير كي شعيلك رجع يدمر كباب بدن يا سقيانا بدن لابد قضب أنا ما أنت قاعد أديك دونا برنامج كنا لكن ما أنت وح كفل علي أما رويني كفل عليان هبلد اللي يروح بدنا وكنا المقالات تنهرجيسا إلى داود برنامج كا هدي يمكن نقول صوب بيرتي وهذا نقتل سنينا عسان كعدان وبدل سيادوه يشوف برنامجك وحيس قليا وضع ما سنتهاي شير جرينتي لا جرينتنا لرجلين بيناتها وما سنتهاي إن كسر دو كنا كسخاودين هذا كوب الله ويمقع مقعي هو نسرين باشا وحنا قيب كجد دوني أنا قيب قاتو برنامج إن شاء الله إن شاء الله أوكي نسرين أدور مع سلمى ده مقع إنه شكتي إن سؤال برنا نكويدينه سؤال شان ركزت هذا مسك هذا برنامج كنا وحويان رجع الضمر مركي الله جماعة دل يرادا وحكوا ذا الحياة إلهي أسبوع ورد نلال هالنقطة نلال مقرنة الحريد أما نعكر هالنقطة يا بين بدن يا سقيانا بدن بس لا هذا بحنا جواب. الآن بدو ما سنت هرتا والسؤال والله إن لقى فكرة إن لقى جوابنا مضن إن هرتا مر والبقيس كوحة أذب دحاض دمركا إن بدنا وحلا إلى هذا دمركا إن وحويا قفك كلية قيسك كلا وضع يدو قيسك كلا وضع أي سميسا بدنا إن وحيابا عن والله ده يدي قيسك ينين كذا يعرض تونا وفعنين majority-ga waxa la dhahaa in gabadhu tusaale ahaan oo kale markuu ninkeedu shaqo ka yimaado kale qayla ayay kala hortagtaa buuq iyo waxaan loo baahnayn oo ninkeeda uba fiicneen waxa fiican gabadhu haddii marwo tahay in qoyskana badanaa waxa burburisan oran karaa marwada reerka taasi oo aan ubadkeedana u xeerin iyada jismi ahaanteeda u xeerin tusaale ahaan oo kale markay ninkeeda ku qayliso kale ay ama ay ninkeeda cadhoodo guriga ka baxo ama ku dhaawaa ku furayayo kale way xanaaqdaa shindadaha ay urursataa ama wixii guriga alaabyada ka yaalay guriga hooyadeed bay geysataa dan markii guriga hooyadeed geysato waxa la isugu imaado la isugu soo biyo shubtaa maxkamadda intaasoo kun oo qof waa maalinkii maxkamadaha isku furan oran karnaa okay adoo mahadsan nasrin taasi waa qoyskii marka xagga xiriirkii markii u namaano dadka xiriir baa ka dhaxeeyay yaa isleedahay way been badin qiyaano badin hadan xagga eego wallahi xagga raga qiyaano badan maxaa u sababeynaysaa iyagoo tan la sheekaysanayay doonaya inay tan kalena xiriir la sameeyaan sax waan gartay taas baa markaan oran karaa ragga way ku qiyaamo badan yihiin oo hadda adigu fikirkaaga ragga qiyaano badan baa leeyahay dabcan horena mahmaa Soomaaliyeed baa u jirtay oo barnaamijkan mid ka horeeyay raggu ay kaga jawaabayeen taasoo ahayd dumarku inay kun kooniyaan midna kala baxaan marka adigu ma difaac ahaan dumar ba difaacaysa mise ra'yi sax oo ku salaysan oo jirta wax jira sheegaysa may waan ka arkay rag horta iskuuma wada jiraan waxa jira rag iyagu shalmad raac la dhaho oo aan oran karo wallahi iyagu intay tan la sheegaysta ama tan la barkii qoranayaan tan ay walaashood ama xaafadooda ugu timaadaan ay la barkii qoranayaan xiriir la sameeyaan waxa jira iyaguna rag qaar iyaguna hal mid kaliya ku kooban iyagoo xataa qabinba gabadha ayagoo laba sheekaysta hal qof ku kooban yihiin marka raggu kuma wada sinaan ku leeyahay laakiin se waxaan jeedaa ragga iyagu shalmad raaca aad ma santa nasrin adiga hadda kula kaftamo sharahan magaalada joogta caasibada imsa xiriir leedahay والله يعني مركن داعت كهالله هالقف أو كليان حير الله طبعا هذا ما سنتهاي نصرين أو إنه قد شفتي سؤال كفتنا أنكو يديني قلبت هل كان برنامج كان كدوب إنه مقالة هرجيس عاصمة السومالي لان بل إما قفك كحيجان وسين دونا جانسكا كسرو كان كسخاودين هذا كبلاوي مقعد كدوه هلا أيه مقعد ماريا عبد محمد أوكي ماريا كسرو كان كسخاودين سؤال عن ما أنت برنامج كغيب قادنا سنكو يديني نحوي حاجة نلش مركي الله إيجو ضد كيس قبائي يا أنت بدن هرت كيني كريه بربركي جوركي كلا تجا تاسيوا ميت كلنا وحكورنا يسا رجع يدوم المركي حرير اللي هي قيانا بدن تيات كهر مريسا ذا قرنا
marka xiriirka la leeyahay rag iyo dumar waxa khiyaamo badan samankan la joogo aanu ku jirno waliba ragga khiyaamo badan oo dumarkii de bari hore maahdan imika ay rag soo qaadanayaan leeyahay dumarku kunbay la hadlaan koobi ka raacaan waxa way jirtay dumarkuna bariga hore way ku dhaqmi jireen laakiin hadda kuma dhaqbaano de waxay raadinayaan xabada caada laakiin ragga boqolkiiba boqol hadda nagaga badan oo marka waxaad leedahay in khiyaanadu waxa badan ragga ma xad ku sababeyn karaysaa sabab way jirtaayo anigaygan bay igu dhacday inuu xagan dhaho adigan kala socdaa xaga kalena uu qof kale ku wato marka ragga hadda u badan inta u badan ragga weeyaan noocaas Allah wayahay Maria adan kula kaftama qudhaada iminka maadaama qof dhalinyaro aad qurux badan baa tahay magaalada ku nooshahay Ilaahay baana ku sameeyay kaliya ma hal bad iminka marka maadaama kii hore ku qiyaamay abal dadkii raggii miyaad ka aarsatay mise hal qof bad wali aaminsan tahay horta nafahaan qofku markuu ku khiyaamo adigu ma waxba mad khiyaamina ma guul dareysan sidoo waxa soo tijaabi mar kalena inkastoo marka hore ku degdegay la khiyaamay haddana kadib markii dambe alxamdulillah ku guuleystay imika hal qof baa la hal qof baa la marka ma guuristay hore ma guuristay no ma guuristay laakiin imika hal qof baad musharax u tahay wad aaminsan tahay aad ma santahay Maria oo barnaamijka ka qayb qaadatay Maria wali su'aal baa ku dhiman xaqii nolosha markii loo eego dadka isqaba yaad isleedahay burburkan yaa isleedahay waxaan inuu wax burburo wax la kala tago yaa ka dambeeyay isleedahay dhinacooda qaadanay mas'uuliyadda horta waxa jira qoysas social media ku dhisan iyo qoysas caadi ah marka kuwa caadiga laga hadlo waxa u badan mararka qaarkood dumarkaad oranaysayo ninkii oo kululo shaqo kiimiba qaylo kala horimanaysa kan social media ku jirana waxaan oran karaa waa ragga ayaaba adigu gabadha de xumeeyo oo maxaa tusaale u soo qaadan karaysaa haddii social media dad ku jira ragga wax xumeeyo aad leedahay de social media inkastay badan yihiin aanu hadda waxba ka xasuusan karin haddana waxaa jirta qoysas saa ku burburay waxaa jira gabadhan fanaanada ah Helena Rasmi Rays iyo Farxaan Yare dad marka hore social media ku jiray may ahayn laakiin markii ay soo galeen dhibaatada ay kala kulmeen waa sidan marka waxa leedahay kala tagooda iyo burburkooda waxa mas'uulka inta badan waxa weeyaan social media طبعا social media ayaad aaneynaysaa u dameynaysaa waata labadoodii aad iminka eed isleedahay ma Farxaan Yaran saarnaa mise Rasmi Rays markaad eegtaa والله ده قبل ويا رسم رئيس أيد ما صار لكن السجى ويا وحصو دني إن يضع أيد هلا هاتو سوشيال ميديا كوسو بندك تقويس كذي يشعل كذي نلاشي ده فهم لقى لكن السجى أيا كدم بيا إنه قويس كاسب بربرات فرحان بقى كدم بيد له هاي كدر بيتي مركز له طبعا وشكلي حقي قيانة دي مركز رجع وبدن بس وعاش هذه هذا أمها سنتها ماريا أي سؤال جالس جواب وعنا قصيصي ولي برنامج كنا برتمها كجرنا ولا شيء مقعد هذا نقول بالله ويكسر لو كنا سخاودين walaal waan dhawahay aad baad u mahadsan tahay magacaygu waa Asma Ahmed Asma barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay nolosha laba su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo mid waxa weeyaan yaa mas'uul ka ah kala taga qoyska oo qaladadka yaani inta la isguursado la isku faano marka hore la isjeceliyo farxad lagu wada qaato ugu dambeynay qoyska burburo taasi waa mid yaa saqayana badan marka nolosha la bilaabayo xiriirka waa su'aal aad u wanaagsan haddaan ku hormaro su'aashaada koobaad ee ah labada qof ee xiriirka labada qof ee isqaba yaa furniinka ku degdeg badan dhankayga ahaan dumarkaan oran karaa waayo iyaga inta u badani ku dirqiya kuna qasbeen raggu furaan iyaga dabcan ha iyaga codsigu ka imanaya sababtoo ah waxaad arkaysaa iminka waqtigu waa isbedelay dadkiina imika waxay noqdeen dad social media noloshii oo dhan ku koobay hase ahaatee dumarkii markii xilkii ay guriga ka hayeen ee u ahaa ay udubdhaxaadka ka ahaayeen ay awlaadii iyo reerkiiba ay haynayeen bay ku bedeleen inay maxaan idhaahdaa ka doorbidaan inay dibadii ay iyagina la shaqo tagaan ay raggi la tartamaan tartankaas awgeed baa keenay in qoyskii laba nin ma wada maamuli karo oo wiil iyo gabadh baa loo baahan yahay markaas maadaama labadoodii bay isdhahdeen han wada kalahno han wada wax wada qabsano taas waxa keenaysa baaba iyo burbur awlaadii u imanayso daayacmaysa qoyskiina uu daayacmaya gurigiina dabcan uu daayacmaya marka burburka gabadha ka dambeeyay gabadhaas ka dambeeyay waa tahay hadii aan soo laabana xagga xiriirkii laba qof oo dhalinyaro ah
shan sano ha wada sheekaystaan saddexna wada sheekaystaan maanta Soomaalidu waa nasuulna xaalkeeda صح bal ka warna miyad eedeynaysaa labada dhinac beenta iyo khiyaanada labaduba horta ma kala liitaan labaduba waxa weeyaan baan oran karaa waa libaaxiyo dhankan marka la yiraahdo xiriir ahaan gabadhayna kuma oran karo kuma lihi gabdhuhu ma khiyaano badna kumana lihi inamadii ma khiyaano badna labadoodiba ma kala dhacaan baan oran karaa dhinacay oo marka cid aad eedeynaysa ma leedahay ma jirto labada dhinac halka dadkii ka horeeyay hablii dhalinyarada ka horeeyay ay difaaceen yani xagga dumarka maya hablaha laftirkoodu lama oran karo malaa'ig ma hadeeyo ما تاجنا ماشي. قارن قوي بدن باشر الله. طبعا ويش ده بقول كيف استقاشن ولا هي اللي كلها كفتم. مقعدي محوها. أسماء هذا يقرأ لي كلها كفتم ما دام قفنا ليرة أتاهي. لا ليرة أنا كمان مارماين سمايستان بارتنر أمر الله معنا. هذا مثل هذا حبة كوكب أنت ما دام أتري دمر كقول له ده دماها. ما يقولي حلي جدي. ما سبيكر هذه ولا كوكب ما كريسا. شو هذا جوابتي. يعني أنا أدرون كرتيد يعني دمر قال كان دمر كيف تكبير سايود. إنما دي حميرك مو كوبنان كرتي بفلا ما يا ولا المير كاون بايقو فلان كران وران كرا لكن ولي تلو ولي وحميس بس ما يا ولا ولي حولاي كلا يقو وقت داود البرنامج كان حساب قيمه بدنا برتماك جيرنا ولي اساته برنامج كعسان كعدان كبدل انا داون ان ايت نغا تجدي سبسكرايب كلا لو غادو سبسكرايب كعسان كعدان بدل بينو قان كنا هاي سيد نوغا من نقطه برنامجيدا نوعان xiisa leh nolosha adoys waa tahay in ku soo dhawo walaal magacaaga saddexan adan noogu bilaabay channelka Sakhaawdiin wadhawahay walaalo magacayga xalaa Hibaaq Cabdinaasir Xuseen Hibaaq Cabdinaasir Xuseen malaha markii ugu horeysay ma talo aad muuqaal ka muuqato mise hore ma qiimo badan badan ma wallahi markii ugu horeysay xagga kaamirada soo yaray adoo aad sidii very good Hibaaq ku soo dhawo channelka Sakhaawdiin waa miskiinkan ku horeysanay ku hor fadhiya waxaan rabnaa inaan ku weydiino su'aal nolosha qusayso waa laba qaybood mid waxa weeyaan dadkaan is qabaayay oo laba dhidig rabbi sameeyay ayagoo caruur ka dhaxaysay qoyskii familkii burburiyaan waad ogtahay yaad is leedahay mas'uuliyad bay qaadanaya yaad ku eedeynaysaa ana waxaan eedeynayaa dumarka oo dadka is qaba burburka qoyska dumarku ma ka yimaada burburka waa gartay waayo dumarkiiba ciyaalkii raayo wixii dayacaya ninkiina markuu yimaado isagoo shaqo tagay isagoo kulul gabadhiisii oo kulul ciyaalkii oo silcsan oo dayacan markaas isagina uu kululaanaya marka anigu khalad ka xasaaraya haweenka marka waxaad eedeynaysaa ana dumarka eedeynaysaa burburka waayo dumarkii ninkii oo kulul bay ku qaylinayaan ciyaalkii oo dayacan marka inay nolosha wax ka bedelaan way dumarku very good qof dhalinyaro tahay xiriir baa jira dhalinyaro ilaahay isku abuuray soo xiriirkaasi laba su'aalood yaa qiyaano badan yaasan marka qiyaano iyo been waa labo qof intee joogtaa ku yiri ama halkee joogtaa been qofna waa qiyaano tubta nolosha qiyaanta marka labada ayaa ku badan taana rag iyo dumarba horta way ku badan yihiin waayo inantiina iyada xaafadda joogta oran kartaa meel ban jooga ayagoo isla balansanin oo been buu sheegay inankiina isagoo meel jooga amba habla la joogo oran karaayay anigii xaafadda hooyaday ma joogaayo waxa isku mashquulay ay shaqan haya marka labadoodu way been badan yihiin banaan leeyahay xaga xiriirka ka waran markii qiyaano badan xiriirka ragga qiyaano badan maxaad ku sababayn leedahay ragga beentoodii qiyaanadooda ragga xalay wallahi ka daayaan dumarka waa gartay sabab ma jirtaa aad ku aanan karayso dumarka mararka qaar ba dumarka ay ku maahmaan gabar 9,000 bay ku miisaamid bay kala baxdaay ragga ma beeninaysaa rag iyo dumar oo isku mid iyagu way la sheekaystaan inta tan ku raadaan adigoo kaligaasan kugu koobanahay ku jecelahay ay iyaguna mid kalena iska wataan marka rag iyo dumar oo isku mid wallahi waa gartay aan kula kaftamay adigu iminka ma mid kaliya la sheekaystaa mise 4 3 iyo 2 والله يا ضرب تفكر ده أنا والله بيستح أنا شكستها ميدكم كوبني واو لبي سدح هذا شو ما شاء الله وقبل يقول رئيس بلا رنت النودي اللاعسة سيد دراديت محضر أنت مركز أفر رجع سدح وش شو فاسنيس ده أنا كان أنت كل هذا بحافظة بيسيا بحافظة مشغول بكير شرطة عادي أي الله شكستها ميرك البيسيا وتكلم بالشيء وتكلم عن عسال مركز فرحت مدري أنت سيد صدو مركز عادي فرحت ما كدر أنت ما دام كانت قنعسي كنا يعني لا هي حافظها مشغول سنة فرحت ده يستقبل سيدان أنا كسماني يوم بيستقبل يقسماني يا حد لا ده وتكارسني ها كارسني واني أنا كل جيجو كرسوني بنوع هيتي أنا كل جيجو كوبنين كا يجو بس يكون لا ده كل جا أنا كوكو كوبنين قرمي كوكو صبيرتي محمد حتى داينا وحكاسة مرة ميستري ها وقرتي أنا وده شيء كسنت نيبا إن يرى
kale aan ku arkay profilkeeda iyadoo soo dhigatay WhatsApp-keeda waxa aan ku yiri inta ma la sheegta hawla sheegta markii ma runta sheegay laakiin saasaygu beertay maalinta ka bacdi waxaad go'aan ku gaadhay maalinta ka bacdi waxaan inaan ragaa u naxariisan boonde ana dhinacayga ka wata idhaadana hawl kale ay mashquulisay watahay hada ma satahay barnaamijkeeni waa qiimihii daba soo gaarnay watahay qofkii ugu dambeeyay barnaamijka su'aasha aan weydiinayna galabta waa galab khamiis ah waxaanu saarannahay hodheel ama qayb ka mid ah magaalada Hargeysa lagu caweeyo waxaana wareysanaynaa dhalinyaro aad u qurux badan oo ku nool ayagoo ra'yigooda dhibanaya ila soco inantii ugu dambeysay su'aasha aan weydiiyay ku soo dhaw channelka Sakhaawadiinada ku bilaabay magacaaga waan ku dhawahay walaalo magacay waxa Huda Xasan Cabdulaahi Huda Xasan Cabdulaahi waxa laga daawanay channelka Sakhaawadiin maanta barnaamij su'aalaha aan weydiinaynay oo aan la wadaagna asxaabtada ka horeysay waxa kamid ah laba su'aalood waaye wana laakiin noloshu bay quseeyaan gabar iyo wiil marka ay xiriir leeyihiin yaa qiyaano badan yaana been badan aslaan wala horta su'aal fiican aanu sanaamisanahay waxa qiyaano badan wiilka ama ragga waa gartay maxaad ku sababeynaysaa sababtoo ah marka hore inta doonay in la sheekaysto ama uu soo doonto in badan daba socdo ay markay inantu de ma jeclaato oran karnaa uu ka soo doono ka heli karaa ama ka jeesan karaa oonu danayn karin oo markuu ogaadina jeclaatay maxay toolay aanu iskaga tagaa inta badan marka ayaga qiyaano badan ma ay jirtay leeyihiin dumarku 9 bay koonaysaa mid bay kala baxdaa horta taasi walaahi wajh waan maqlay maamada ma ku dabaqdan miya idinku way jirtaa laakiin si aanu sanaamisanahay horta qalbigu waa mid kuna moola qaadi karo markaan waxa leeyahay midun bay aan kula kaftama adigu dhalinyarada tahay iminka rabbi waa ku gaarsiiyay xilligii qofku uu xaminayay sidaa darteed adigu mislada iminka hal qof baad ku egtaa anigu ma wala ramay haye ma kor laga hadlamay hal kuma egta marka cid kasta oo ku soo damaacida lambarkaaga si saa wad la shaqeystaa oo xornimad yani dareenta maxaa kugu kalifad silada arrimaha noocaas ma sadarenta marka qofka intaas oo qof kala qaabilaysid yani maxaa dareemay farxad ba dareemaysaa diiqad ba dareemaysaa may wallahi diiqad baan dareemaa diiqada keenay way adiga joortay adiga ku qanacsan maxaa sabab horta walaa qofna ma jeclin in qof bilaan ma jeclin qalbiga ka jabiyo inkastoo mid aan doortay kaasuna qalbiga adaan ku hayo hadana mid baad dooratay qalbiga ku haysaa okay kuwan kale mad iska delete gareysid maadaama ka aad ku haydo mad iska diisid wallahi tasoo kaftan baad leedahay daawadayaal su'aasha inta ayaan loo qabanin waa qayb kaftana ugu dambeyn su'aal kale ku weydiinaya magacaaga igu celi Huda Xasan Cabdulaahi su'aashan ku weydiin waxa weey markay isguursadaan waa tan maalin kasta maxkamadda la wada taagay oo ayadu caruur laga wada dhalay shalina farxad baa la isku yiri to arrinka burburka guurkaana maxaa yaa isleedahay ku eedeynaysaa wallahi guurka horta qoysas badan waxa jira burbura waliba waqtiga imka hadda la joogo oran karno waxa ka soo dhalinyaro isguursaday oo adeanahood yariir oo aan gaadhin xilliga ay mas'uuliyad qaadi lahayn reer oo intii isticmaalmadeen haddana duruufuhu intii maadana kala tagaan inta badan kala qoyska si ku dimo wallahi horta waxaan kala guurka imka hadda joogo u qiimo beelay oo aad iyo aad wax ka sanay shantu jiro carmala marka hadii aan eego waxaan oran lahaa mas'uuliyadda waxa la raga iskale labada dhinac raga eedeysay adigu ma is oran karaa xaq dumarkaad marto wad difaacaysa santahay waxaan filayaa barnaamijkan aad maanta waqtigiina qaaliga ay noo horteen oo aan rajaynayo inuu kaameramanka wajiyada quruxda badan ee malka idinkaga muuqda waa dadkaasi waxaan isweydaarsanayna waa fikir ama idea maybe dadkin idin kamid ah in daawanaya inaad u qaadataan inay wixii habluhu sheegeen inay run yihiin ama ay been yihiin waxaan aad u jeedaan waa social media baanu leenahay fikri aaraha barnaamijkan mid la midana horaan u soo daynay oo ragga ay ka hadlayaan ugu dambeyn waxaan leeyahay asxaabtan qaaliga ah muuqaaladii ugu horeeyay aad ka daawan doontaan ma aha saan rajaynaya muuqaalo kale ay idin la wadaagi doonaan bal dadweynaha ku daawanaya ma maanta barnaamijka aad nagala qayb galaysaan oo martiin ugu tihiin mise mar kasta nala shaqaynaysaan jawaabta aad bixin doona waad mahadsantahay walaalo kulay barnaamijkii koobaad kula daadihinayno ma noqonayo barnaamijyaduna halkaas ka sii soconayaan maanta hadaad na aragteena bari garabkiisaan taaganahay barnaamijyadan iyo barnaamijyo ka qiimo badan kana xiisa badan ayaanu soo wadnaa insha Allah haduu Ilaahay idmo waxaan leeyahay dhammaan asxaabta kulay familiga iyo friendskiisaba halkaas cadaanka
casaanka han idhaahdee caddaan ha loo bedelo farxadda naga tan badan maanta subscribe-kana hana lala ogaado like-ta sheerka intuba dhinaciina weeyaan waan idin salaamanaa dhammaantiin aad baan u wada mahadsantihiin horta dadkayga qiimaha iyo sharafta lehna daawanaya gudoomiyahayaga ama YouTube channelkayga Sakhaawudiin maaha de maanta ugu horeysan wax ku daadihin doono insha Allah filimaanta xana ah khamiista insha Allah filimaanta xana ah sidoo kale riwaayado waxyaabo barnaamijyo barankiyo iyo waliba challenge inta waad nagala daawan doontaan waana nagala socon doontaan insha Allah mana noqon doonto insha Allah maalintii nuugu horeysay iyo maalintii nuugu dambeysay toona waliba waxaan idinka codsanayaa dadkayga waliba kamarada dabadeeda joogo insha Allah inaad halka cas cadaan noogu bedeshaan subscribe iyo waliba share tana noo raacisan insha Allah like tana noo saartan waliba dadkana daawanay dadka kamarada dabadooda joogan jeeda waliba aanan iskiin bara waliba magacaygu waa Nasriin Baashe insha Allah oo wada socon doona wada shaqeyn ayay naga dhaxay doonta insha Allah watahay daawadayaal intaas ayaanu idinkaga tegaynaa barnaamijkii soo socday muddadii kaabneed waxaan idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh aadaan u mahadsantihiin